tobabar soconayay muddo 7 cisho ayaa u soo gabagaboobay mas'uuliyiin ka tirsan xusbiga mucaaradka wadani. Tobabarkani oo bixinaysay hay'adda IRI waxaana casharada bixinayay khabiir ka socda dalka Ghana. Tobabarkani ayaa ku saabsanaa qaabka wacyigelinta iyo u diyaargarowga doorashooyinka, waxaana munaasabadani ka hadlay garabka dhalinyarta xusbiga mucaaradka wadani iyo garabka haweenka ee xusbigaasi. arrintaas waxay u baahan tahay olole ka duwan ololaha marka aad aaminsantahay inay beelacdeeyaan beelahana waanu ixtiraaminaa oo dad iyagana codkooda waqti baanu leenahay beel kastana xisbiga wata waa ogtiina waddankeenna muddadii 5 sano ay inta bisay qabyaaladda meel fog gaadhay mabda'a labaad ee ololaha ay ku bisay waxa weeye sidoo kale inuu dadka reer Somaliland u ababiyo oo wadaniyad dhiso qabyaaladda waxaan ku bedelaynaa wadaniyad marka olole gaar ah taasuna u baahan marka aaminsantahay xuquuqda in dastuur qofkii markaynu aaminsanahay in qabyaaladda lagu xalliyo wadaniyad olole nooc gaar ah ay u baahan wanaagina u dejisanay xisbiga wadani wuxuu diyaar u yahay doorasho dimuqraadiyadda oo ku dhisan afkaar iyo ilbaxnimada ololaha lagaga doonayo dadka mabaadi'da iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga mucaaradka ee wadani taasaan diyaar u nahay waxaan rajaynaynaa Somaliland in ay u guuri doonto jidkii dimuqraadiyadda iyo afkaarta xisbiyada lagu aqbalayay barnaamijyadooda annagu ololaha iyaga ujeedadayada iyo dhismaha xisbigeeguba waa wadaniyad waa wadajir waana midnimo waxaan mahad celinaynaa mar labaad khubarada nagala qayb gashay dib u eegidda qorshe hawleedka lagu eegayay istiraatiijiyadda xisbiga wadani ee campaign-ka doorashada 2017 November in lagu soo aadan Peter McMahon oo ah nin khabiira oo waxa weeyaan dalka Ghana ka ah campaign manager xisbigii MPP talada imika haya Somaliland lagu jooga xisbiga wadani inuu kala qayb galo hawsha ololaha gudaha dibadba degme iyo gobolba aan turxaan iyo dagaal iyo qaylo iyo buuq iyo qabyaalad midna aan lahayn ee aan u gali lahayn ololaha oo aan aad ugu mahadnaqayno hay'adana siisay IRI training-kana siisay baan aad ugu mahadnaqaynaa annagoo campaign-kii nala joogo iyo wadaniba aanu dhannahay laamihiisii oo dhan ayaanu halkan ku qaadanay waxaanaanu sidnaa gaar ahaan anigu message-kii aanu siin lahayn maadaama ay yihiin dumarku kuwa codeeya message-kii aanu siin lahayn haweenweynaha reer Somaliland ka daraf oo aan qabyaalad iyo reer hebel iyo gobolaysi midna aanay ku jirin reer Somaliland loo dhan yahay ayaanu idin sidnaa oo soo qaadnay waana ugu mahadnaqaynaa campaigner-ka weyn ee noo yimid Peter reer Ghana Peter khabrada weyna kule baanu isagana gaar ahaan aad ugu mahadnaqaynaa. oo kalena waxaa munaasabadani ka hadlay khabiir ka socda dalka Ghana isagoona uga mahad celiyay qaabka ay uga faa'iideysteen mas'uuliyiinta ka tirsan xusbiga mucaaradka wadani 7 cisho inuu ka soo bilaabay muraaqib goobeed dabeedna mid degmo dabeed ilaa heer gobol dabeedna xisbigooda waa inuu u noqday maxaa ku managerkii ama maamulihii campaign-ka u noqday oo dabeedna uu sidaa guur ku gaadhay xisbigiisa tallaabooyinka soo qaaday magaranaysa kala dambeeya oo khibrad badan halkaa ka soo kororsaday dabeedna Afrikada u gudbiyay dalal badan inuu wax kala qabto ugu gudbiyay halka lagaga warramay inuu inagana inagala mid dhigay wadamada uu khibradiisa u gudbinayo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa isagana maanta oo ay bisha Abriil tahay 8 waxaanu halkan kusoo gabagabaysay 6 bisha Abriil ay tahay 6 aliga waxa halkan lagu soo gabagaboobay diyaarintii istiraatiijigi campaign-ka ee xisbiga wadani laga bilaabo maanta waxaynu hor yaalla waxa weeye sidii aynu u dabaqi lahayn ee aynu u fulin lahayn
ee aynu u sal ballaarin lahayn oo imaka hadday intani heer qarantay heer gobol iyo heer degme iyo heer xaafadeed iyo heer baa aynu leveladii ay lahayd oo dhan u gaadhsiin lahayn waa wax inoo yaala mar walbana tiimkiina halkan jooga mas-uuliyadda idin fuushay ee idin saaran ee xisbiga idinka saaran waxay noqonaysaa sidii aa arrinkaa u dabaqi laydeen ee u gaadhsiin laydeen meesha kasta oo looga baahan yahay u gaadhsiin laydeen annaguna waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu hogaankii xisbiga nahay inaanu wax kasta oo aan nooga baahan tihiin inaanu ka qaadanno arrintaa hoggaan ahaan inaanu ka qaadanno waayo xisbigu guul gaari maayo haddaan hoggaankuna ololaha la diyaariyey aanu noqon mid ay ka go-anta fulintiisu tiimanka loo tababaray ee gacanta inoogu hayaana aanay iyaguna itaalkooda iyo caqligooda iyo aqoontooda gelinin sidaa u meel marin lahaayeen guusha aynu igsanayna gaari mayno intaasoo isbiirsaday baynu doonaynaa inaynu kaga mara dhalino inuu xisbigeenu guul dhaqsaa ugu tawaabsada insha allah taa haddaan intaa kaga gudbo kolley dalka de waxaa maalmaha kusoo beegan bisha dhammaadkeeda waxaa kusoo beegan kaar qaybintii oo commissionka doorashooyinka qaranku uu qorshihiisii diyaariyey fariinta aynu u gudbinayno ummadda somaliland meel kastoo joogaan waxa weeye inay qaataan nin waliba qof waliba uu qaato kaarkii uu ku codbixin lahaa oo uu tago goobtii uu iska diiwaan geliyey ama goobtii uu qortay inuu ka odayn doono uu sii qortay ee warqadii maxaanku dhahdaa uu hore u qaatay xilligii diiwaangelinta uu la tago goobtaa si uu kaarkiisa u qaato halkaa waxaan intaa u leeyahay qofka aan kaarkaa qaadan xaqii uu lahaa iyo awoodii uu lahaa ee dastuurku siiyey inuu xukuumadda wax ka dhista xukuumaddiisii meeshay ka baxaysa 5 sanadoodba marbay sida sharcigu tilmaamayo soo marta inkastoo marar badan ay dib inooga dhacdo nasiib darrooyin badani inala kulmaan 5 sanadoodba mar buu muwaadinku helaa inuu ka taliyo cidda talada u haynaysa ee uu ku aaminayo masiirkiisa waxaan leeyahay si aanay taasi idinka jaaniskaasi iyo fursad aanay idinka lumin muwaadiniintu ha qaataan kaadhibkii ay ku codayn lahaayeen hana u meel dayaan halkay codkooda marinayaan fariintaan ummadda u gudbinayna waxa weeye xisbiga wadani wuxuu doonayaa inuu isbeddel ka sameeyo dalkan wuxuu doonayaa inuu dalkan midnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo ku dhaqanka xeerka iyo ilaalinta wuxuu kolba ummaddu iyo inuu ummadda u aqoonsado inay tahay awoodii lahayd talada dalka inuu aqoonsado oo uu ixtiraamo dareenka dadka inuu ixtiraamo dareenka dadka oo uu yahay ka loo shaqaynayo xisbiga wadani noqon